بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفر سنة يسدح بلود كدب دورشدي مدحوينها مدحوليد كيسو دماضي وحان مانتا قيمين حق حقيقو iyo xog ogaalnimo ku salaysan ku sameynayna xaaladda dhaqaalaha Soomaaliya dhaawaca gaaray ganacsiga dalka iyo culeysyada dhaqaale ee madaxweynaha madaxweyneedkiisu dhamaaday u geystay ganacsatada qoysaska danyarta ah iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed halbeegga ugu muhiimsan ee lagu qiimeeyo guusha iyo waxqabadka dawladaha casriga waa sida ay wax uga bedelaan nolosha bulshadooda iyo sida muwaadinku uu waxtarka dawladda uga dareemo dakhligiisa iyo noloshiisa maalinlaha ah ayna u abuuraan fursado horumarineed sida ku xusan warbixinta xaaladda dhaqaalaha Soomaaliya ee bangiga adduunku daabacay bishii May 2026 kobaca dhabta ah ee wax soo saarka guud ee dalka real GDP ayaa hoobtay sanadkii 2025 wuxuuna hoos u dhacay 3% taasoo saameyn taban ku ah dhaqaalaha dalkeena iyo dakhliga dadkeena sidoo kale awoodda wax iibsiga ee bulshada ayaa hoos u dhacday 5.7% taasoo cadeynaysa culeyska soo food saaray nolosha qoysaska dakhliga shirkadaha iyo guud ahaan dhaqaalaha dalka sanadkii 2025 waxay ganacsiyada dalka u ahayd sanadkii ugu wax soo saarka iyo faa'iidada yaraa 10 sano ee la soo dhaafay waxaa xirmay ganacsiyo badan waxaana dalka ka holeelay ganacsato Soomaaliyeed oo maal gashaday dalal shisheeye halka shirkadaha qaarna ay duruufuhu ku khasbeen inay dhimaan shaqaalahooda ama ay mushaarka ka yareeyaan maalgashiga dhulku waxa uu ahaa habka ay hantidooda ku kaydsadaan dadka Soomaaliyeed nasiib darro waxaa khasaaro ba'an wajahaya dadkii ku tiirsanaa maalgashiga dhulka oo aan maanta dhulkoodii ku heli karin qiimihii ay ku iibsadeen waayo waxaa qiimo tiray xaraashka sharci darrada ah ee madaxweynaha madaxweyneedkiisu dhamaaday ku sameeyay dhulkii danta guud sidoo kale maadaama dhulka lagu iibiyey suuq madow oo la baalmariyey shuruucda dalka iyo khasnada dawladaba waxaa dibadda loo daabulay lacagtii caddaanka ahayd ee lagu xaraashay dhulka waxaana lacagtaas laga saaray bangiyo Soomaaliyeed oo ku dhaqdhaqaaqi jiray kuna maalgelin jiray ganacsiyada dalka sida ku xusan warbixinta bangiga adduunka lacagta caddaanka ah ee bangiyadu hayaan oo hantida guud ee dalka ka ahayd 40% ayaa sanadkii 2025 hoos u dhacday oo gaartay 35%. sidoo kale maalgelinta bangiyada dalku bixiyaan oo sanadkii 2022 ahayd 30% ayaa sanadkii 2025 hoos ugu dhacay 14% taasoo adkaysay in shirkadaha dalku ay helaan maalgelin ay ku ballaariyaan kuna horumariyaan ganacsiyadooda bulshadana ugu abuuraan shaqooyin hor leh musuqmaasuqu waa dilaaga dhaqaalaha iyo dawladnimada waa dhaqan guracan oo ka soo horjeeda diinta damiirka dadnimada iyo dawlad wanaagga kaasoo xaalufinaya hantida ummadda isla markaana curyaaminaya horumarka dalka dadka
iyo dowladnimada Soomaaliyeed madaxweynaha madaxweynaadkiisu dhamaaday wuxuu yimid iyadoo ay Soomaaliya horumar ka sameynayso halbeegyada dowlad wanaaga sida sareynta sharciga xakamaynta musuqmaasuqa iyo wax ku oolnimada dowladda madaxweynaha madaxweynaadkiisu dhamaaday wuxuu wiiqay halbeegyadii dowlad wanaaga waxayna dowladdiisu astaan iyo tusaale nool u noqotay musuqmaasuqa dhulboobka baadda shacabka iyo dhaca hantida qaranka waxaa dib u soo noolaaday dhaqankaas xun awgiis isbaarooyinkii lagu dhici jiray shacabka waxaana ayaan darro ah in Afgooye ilaa Muqdisho ay maanta yaalaan 16 isbaaro oo lagu baado beeraleyda Soomaaliyeed ee quudisa shacabka caasimadda isbaarooyinkaas waxay naafeeyeen wax soo saarka dalka waxay sababeen in beeraley badan ay ka baxaan suuqa sicir bararna ku dhaco qiimaha khudaarta dhoofinta wax soo saarka dalkuna uu hoos u dhaco dekedda magaalada Muqdisho ayaa laga dhex abuuray shirkado baad ka qaata ganacsatada kuwaasoo celcelis container kasta ka qaata $320 oo khasab ah jeebkoodana ku dhacda taasoo sababtay in ganacsatadu la kulmaan culeysyo maaliyadeed soo dejinta cuntaduna ay hoos u dhacdo 2.5% qiimaha badeecadda iyo maciishaduna ay qaaliyoobaan halka sicir bararku laba kacleeyay sanadkan oo uu gaarayo 6% sida ay soo qortay warbixinta bangiga adduunka Soomaaliya waxaa maanta ka furan mashaariic horumarineed oo hay'adaha caalamiga ah ku maalgeliyaan dalkeena waxaa saayaan darro ah in dowladda uu hogaamiyo madaxweynaha madaxweynaadkiisu dhamaaday ay ku fashilantay in ay dalka uga faa'iideyso mashaariicdaas horumarineed maadaama aysan lahayn karti iyo hufnaan ay ku filiso musuq iyo nin jeclaysina lagu bixiyo xilalka iyo qandaraasyada mashaariicda loogu deeqay Soomaaliya bangiga adduunka iyo bangiga horumarinta Afrika iyo sidoo kale iskaashiga caalamiga ah ee waxbarashada ee loo yaqaan GPE waxay sanadkii 2024 kaliya qoondeeyeen inay Soomaaliya ku maalgeliyaan in ka badan $330 milyan oo mashaariic horumarineed ah waxaase ayaan darro ah in laga faa'iideysan waayay $240 milyan oo ka mid ah 330kaas oo u dhiganta 73% halka sanadkii 2025 Soomaaliya isla hay'adahaas ay u qoondeeyeen in ka badan $407 milyan balse laga faa'iideysan waayay $285 milyan oo u dhiganta 70% taas macnaheedu waxa ay tahay in dowladda waqtigeedu dhamaaday ay Soomaaliya ka khasaarisay in ka badan $5 bilyan oo laga heli lahaa fursado shaqo kobac dhaqaale iyo horumar bulsho waxaa intaa dheer in hakad la geliyay mashaariic socotay lana jaray miisaaniyado horey loogu qoondeeyay Soomaaliya kadib markii musuqmaasuq iyo wax isdibamarin lagula kacay nasiib darro dowladda waqtigeedu dhamaaday waxa ay kulansatay laba cudur oo dila ah waxay dalka ka khasaariyeen lacagihii loogu deeqay waxayna boobeen hantidii ummadda ee dalka taallay intii uu xukunka joogay madaxweynaha madaxweynaadkiisu dhamaaday wuxuu si ba'an u wiiqay nolosha dadka danyarta ah waxaana kordhay tirada dadka barakacayaasha ah oo sanadkii 2022 ahaa
2.9 milyan halka ay maanta gaarayaan 3.4 milyan waxaana korarkaas sababay barakacinta uu madaxweynaha madaxweynaadkiisu dhamaaday ku sameeyay danyar nus milyan gaaraya kuwaas oo maanta wajahaya hoy la'aan gaajo iyo duruufo nololeed hay'adaha qaxootiga iyo bini'aadamnimada waxay Soomaaliya ka soo bandhigayaan warbixino walwal weyn leh sida ku xusan warbixinta bangiga adduunka waxa maanta cunno yari iyo xaalado adag oo bini'aadamnimo la ildaran 6.5 milyan oo ruux kuwaas oo wajahaya xaalad khatar ah oo ay tahay inaan kulligan ka foojignaano una gurmano dadkaas 4 sano iyo 3 bilood kadib doorashadii madaxweynaha waqtigiisu idlaaday xogaha laga diiwaan geliyay Soomaaliya iyo xaqiiqooyinka yaala waaqica waxay ka marakacayaan in Soomaaliya ay maanta ka saboolsan tahay maalintii isaga la doortay hoggaankiisu uu sabab u noqday hoos u dhac ku yimid kobaca dhaqaalaha dalka awoodda wax iibsiga qoysaska iyo macaashka ganacsiyada ayna horseedeen korar ballaaran oo ku yimid shaqo la'aanta sicir bararka saboolnimada iyo tirada barakacayaasha halka taliskiisu ka xooleystay xaalufinta hantida qaranka iyo boobka dhulka danta guud iyadoo nasiib darro musuqa iyo karti xumada dawladuna ay cuuryaamiyeen fulinta mashaariicda horumarineed ee caalamku ugu deeqay Soomaaliya wadarta masiibooyinkaas isbiirsaday ee uu abuuray madaxweynaha madaxweynaadkiisu dhamaaday waxay culaysyo dhaqaale iyo kuwa nololeed oo hor leh u horseedeen dalkeenna iyo dadkeenna waxayna wiiqeen kalsoonida ay dadka Soomaaliyeed iyo caalamkuba ku qabeen dawladnimadeenna waxayna halis geliyeen mustaqbalka jamhuuriyadda saddexaad ee Soomaaliya haddaba waxaan haldoorka indheer garadka ganacsatada iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqaya inaan dib u eegis iyo isdul istaag ku samayno dhaawaca uu madaxweynaha madaxweynaadkiisu dhamaaday u geystay Soomaaliya si wadajir ah oo lahjaclo damiir iyo damqasho daljacayl lehna ugu heelino qarankeena uguna istaagno badbaadinta mustaqbalka dalkeena dadkeena iyo dawladnimada Soomaaliyeed waa mahadsantihiin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.